السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت أصحاب الشرف كلام كسر جوتون السلام يا وأعتقد تأجيل له ربنا كريم نقرب واحد دوض قمن ضم شيخ يد دكتور كود حد دونا إن مساجد ذا الحين أنا برنامج ين كله شيخ يد دكتور كان يدي كلام دونا فضل عن قاسمنا كعدنا كم القوس بين سبسكرايب صارته سوى كل فيديو قال لك صارت سيدنا ودي فكر سودا وشام عمل له السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. waxaan walaalayaal iska xasuusin doonaa mowduuc yar oo ku saabsan xanuunkan dunida ku baahaya ee coronavirus kala bixiyeen masaajidada in loo xiro xanuunka ma banaanta iyo ma banaan waxbaynu soo yeerin doonaa horta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa kaliya ugu soo dhiibay intan masaajidna muu xirin wax kale oo sameeyeen ma jirin intiisii asxaabtii ka dambeysay khulafaa raashiintii Abu Bakar lahaa Umar lahaa Usmaan lahaa Ali lahaa may xirin sidoo kale culimadii waaweynada iyaga ka dambeeyeen may xirin masaajid marka in la xiraa ma banaana waxa weeyaan dhaqanada gaalada waxa ay nolotay masaajid hal la xirayo hal kala fogaaday waxyaabo diinta leeyna fogeynayo way xanuunkan waa cadha ilaahay cadhada ilaahayna waxa laga badbaadi karaa waa masaajidada weeyaan waa meelaha ugu muhiimsan laga badbaadi karo waxa weeyaan waa gacmaha hoos dhigashada ilaahay weey haddayna ilaahay gacmaha hoos dhigan oo ilaahay xaqiisa u cararin walaaleel kama badbaadi waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah oo masaajidada camira waxaan leeyahay salaanta badiya iyo walaalnimada iyo muhibbada dhexdeena ayaa badiya waxaan leeyahay masaajidada ku yaaca salaama ilaahay ka baqa ilaahay toobad keena ilaahayna u noqda waxyaabahan gaalada hayeenina dhigna jalan hooseynina ilaahay cadhadiisa weeyaan waxaan isagu baana qaadi kara masaajidkana waxaan leeyahay hal camiro baan idin leeyahay assalaamu calaykum linkan tiktoorka isku sheegayna alxamdulillah war sheekh aynu dhameeyay si fiican oo inoo waanay sheekh ilaahay jisayga faafi waxa weeyaan xarunka waxay noogna waxyaabaha lagu qaado waxa lagu kala qaadi karaa dadku soo dhawaadaan neefta la isku qaadsan kara taabashada la isku qaadsan kara waxa weeyaan waxyaabahaas hadii la isku qaadsanayo waxa muhiim ah markii horta in bulshada ay kala fogaato masaajidka kuwa isugu soo galayana be ilaahay uma damaanad qaadin inaanay xanuunka qaadan sheekhu wuxuu yiri masaajidada hala soo galo masaajidada la soo galo way jecel laakiin si hadii halaag yimaado sabab ay timaado masaajidada aan loo gali karaa inaanay banaanin doonaan wuxuu yiri asxaabtu may sameyn khulafaa raashiintii iyo nabi toona calayhi salaam may sameyn waxa weeyaan xanuun noocan oo kala ah way dhicin xilliyadaas ma garanaysaa saasoo kale la isku qaadsiinay waxa weeye marka tiraahdo dadkii masaajidada isugu soo galo is salaama oo ma garanaysaa salaadihii wada tukada ee uga damaanad qaadaysa xanuunka inaan is qaadsiin xanuunka islaamiga gaal ma kala laha waxaan leeyahay hadii aad tiraahdo dadkii masaajidada kale oo lagu wada tukada xanuunka is qaadsiina dambiga aad wax ku leedahay ayaan arkaanigu waayo ilaahay baa bare wala tulqu weydiyakum ila tahluku naftin halaag ha ku tuurin halaag aynu arkaysaa idinkuna leeyihiin gala oo ku socda masaajidka marka dadka nafti isku qaadanay xanuunka miyay halaag ay ilaahay ku dhashay waxaan leenahay dadku war ha kala fogaada ama wirta dhaqtarada u hogaansama ilaahayna laga boqo qof walba gurigaaga ilaahay ku caawin baan ilaahay aad baan idin salaamayaa